saraakiisha taliska ciidamada bilayska Soomaaliland ayaa ka hadlay hawlgallo ay ka fuliyeen gudaha magaalada Hargeysa kuwaasi oo ay ku soo qabqabteen wadayaal iyagoo aan si sharci ah u wadan baabuurta gaar ahaan kuwa fitista ama badqaanka loo yaqaano Sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Fooxle oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waxa ilaa hadda lagu soo qabtay gaadiid kaleeyda fitista oo loo adeegsanayo dambiyada gaadiidkaas qaarkood waxaanu ku haynaa lambar la'aan qaarkood waxaanu ku haynaa buug la'aan buugii baabuurka aan lahayn qaar waxaanu ku haynaa lambar la'aan oo lambarada ka furaya habeenkiina kuwa waxada iyagay ku boodaan ay ku cararaan saadanteed baaritaan dhaba baanu ka wadaa iyadana oo aanu kula dagaalamayno wixii dhaqan xumo ee baabuurtaas iyo inaanu ku soo celino marxaladeedii wanaagsanadii ay lahaayeen haddii ilaahay ka dhigo toddobaadkan waxaan bilaabaynaa qorshe ah inaan u soo bandhigno dadweynaha waxqabadka ciidanka toddobaadkii kastaba qorshahan iminka aan wadnaa hawlgalka waxaa ka mid ah in lagu soo qabto tuugta mukhaadaraadka kuwii khamriga quudanayay iyo kuwii haddii bidikeelay tuugta ahaaya kuwaasoo iminka magaalada ku soo batay qabashadooduna wax badan oo ka mid ah la qabtay iyaga dhalinyaradan wax boobaysa waxaan halkay ku soo gabagabaynayaa dadweynaha waxaanu la yeelanaynaa xidhiidh shacbiga reer Soomaaliland waanu mahadnaqaynaa sida wanaagsan in nolol shaqeeyaan gaashaanla sare Faysal Xiis Cilmi ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay sanadkan 2018 tirada dambiyada gashay ay soo qabqabteen haddaan u galno 2018 oo imika aynu ku jiro bishii 7 ciidanka booliisku waxay soo qabteen ilaa 304 dhalinyaro ah oo qaswadayaal ah oo Hargeysa dhexdiisa laga soo qabtay dhalinyaradaasi ilaa 164 dhalinyaro ah maxkamadda la geeyey galaaxyo kala duwan ayaa ku dhacay ilaa 70 maxbuus oo dhalinyaradaasina waxay garsi ugu yihiin saldhigyada booliiska ee magaalada Hargeysa dhalinyaradaas qaswadayaashii waxay keeneen taba cusub waa inaan hore u aqoon waxay soo kaxaysanayaan baabuurta fijiska ah dadkaa lagu boobayaa dadkaa lagu dhacayaa ciidanka booliisku in badanoo falalkaa geysatay gacanta ayay ku hayaan waxayna horgeeli doonaan sharciga haddii ilahay ka dhigo iyagoo booliisku taa ka duulaya hawlgallada ay wadaan waxay gacanta ku soo dhigeen ilaa 100 baabuur oo fijis iyo baabuur kalaba ah waxay ku xuleeyihiin kastabka Mukhtaar Mursal Xiin Home Cable TV xarunta taliska bilayska ee magaalada Hargeysa.